magacayga waa Jibriil Cabdullaahi. Finance bill oo madaxweynaha Adsen Gareysaki waa arrin aad iyo aad laba nooc in looga fiiriyo u baahan. Waxaan leenahay marka ugu horeysa horta aniga Jibriil ahaan waa taageersanahay ra'yigaas. Waxaan ku taageersanahay caalamka wadamada hormaray waxay horumarka ku gaareen canshuur la qaada qaab wanaagsan loo isticmaalo. Horumar intaas lagu gaaray. Marka waxaan leenahay canshuurta la kordhiyay madaxweynaha Adsen Garey aniga Jibriil waan ogahay in kiilada sokorta ay wax ku darmaan kiilada burka ay wax ku darmaan kiilada galeeyda ay wax ku darmaayeen waxa soo dhan waan ogahay. Jubada biyaha ay wax ku darmaayeen litirka shidaalka ay wax ku darmaan waxa soo dhan waan ogahay. Laakiin wadamada hormaray oo caalamka oo Mareykan, France, Belgium, Ireland lagu dhahayo maanta waxay ku gaareen horumarkaas waxay horumar ku gaareen canshuurtii ay qaadayeen ay dan ku qabsadeen. Marka waxaan leenahay madaxweynaha Adsen Garey aniga waa taageersanahay Jibriil ahaan laakiin waxaan ka digaa qolooyinka canshuurta arooriya waxaan ugu digaa ay gelin iyo madaxweynaha naftiisa aniga waxaan ahay madaxweynaha taageersan laakiin wax qalad ah madaxweynaha kuma raacay anigooba kamid ah xisbigiisa iyo xulufadiisa soo waxaan leeyahay madaxweynaha iyo laanta canshuuraha wadanka KRA labadaba waxaan ugu digaa canshuurtaas in ay gasha waxa loo baahan yahay canshuurtaas in ay gasha qasnada dhexe oo wadanka in ay gasha wadankana wax looga qabtaa loo baahan yahay sidoo kale waxaan u faraafariin xildhibaanada sharafta leh aqalka hoose iyo aqalka saraba macnaha National Assembly iyo Senate-ka labadaba fariintan u faraya waxay tahay canshuurtii aad mariseen waa mariseen dabagal ma ku sameyn doontiin inteedna gaarsiin doontiin mise macnaha dadkan canshuuraha guro iyo madaxda xatooyada baratay oo wadanka joogto oo noqotay dhurwey hilib ku rar aad faraha ugu qaadays doontiin oo ayaga unba iska boobi doono war wixii aad mariseen sharciga aad wadanka u mariseen ka daba taga oo ogaada meeshii aas ku dambeeyay magacaygu Cabdi Ibrahim taas ogsoontiin maanta oo maalin isniin ah madaxweynaha wadanka waxa asqalin ku duugay finance bill waxaan ogsoonahay inay nolosha ruqays wax walba ay qaali noqon doonaan laakiin waxa ka dambeyn doono horumar ee nolol ee rajo fiican finance bill wala mari iminka MPL-ka ay kana mariyeen waa inay oversight role-kooda qabtaan wixii finance bill ku juri ma la meel mari ma la dhaqan geli constituency-kaada maxaa ugu jiri county-kaada maxaa u soo galay maxaa qabsamay maxaa qabsoomin ee ka laga rabaa finance bill la mari waa loo codiyay waa laga tagay maamesh maxaa qabsoomay soo maadaama as madaxweynaha mari nolosha ay qaali ugu noqdo waxaan leenahay dadka mudinaalka hadaba kicina hadaba socdeena waxa oversight role-kooda way mid kale dadweynaha reer wajeer wuxuu sheegay maadaama finance bill-ka anaka dadweynaha dadka tabadiras u rooneen ama askisto culays asku yahay haaska sabreena maxay sanana aamisanahay finance bill hal sanino meel wax ka dambeeya nolol fiican la gaaraya macnaheedu dadku deyn qaadi ma hayo wadanka deyn ay ku soo dhintay ana isku filnana waxman ninkaas heeta meel u socda at least said somewhere so maadaama madaxweynaha horaas ka hor 10 sano deyn soo daldalay ma aan deyn ma rabana isku filnana shalay waxaan arkay soo lahay laba sano meesha ka dambaysa wax maqaar la dhax ama kaba wax la dhax wadamaha laga makeena dibadda Kenya wax walba halsina sadala anaga hada xoolo dhaqatanaanay horumar ay noo tahay macna maqaarka kaba la hagaajina suuna la hagaajo waxba la hagaajina soo waxyaabo badan oo ku jira finance bill-kan hada sir gala anaga gaal damba waxaan keenay finance bill qalinka waa lagu duugay madaxweynaha waa ku duugay culays waa imaada ogsoonahay laakiin waxaan leenahay mudaniyalka maadaama asmarsan dabakaca oo wixii qabsoomay madana ogaada oo wixii qabsoomay xaga ka doodo wax meesha nilgay meesha waxaas way dadweynaha reer wajarna iska sabra ilaa yarsaaqada bixiye culays waa imaade